dugsiyada al irshaad schools بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أرديدا ومعلي عبد العزيز يمر لبعض عشر كيني صومالي فصل كلاباد عشر كينا وحنو هرو صارقنا إنه عشر مالين تور رئيس صوب بلوني عيدا الإسلام عشر كي كوحينا وحنو قادنا عيد الأضحى ما أنت وحنو قادن دونا عيد لبعض إلي بلها عيدها كميدا إسلام عشر كانوا ما تقادن دونا وعشر كذا عيد الفطر عيد الله يقانو عيد الفطر عيد الفطر وامحي عيد الفطر وعيد كدم بيسا بشهر رمضان مركا عيدتك مسلمين تي صومان عيد ما يستان صونكا عيدان بالله يقانا عيد الفطر وعيد كدم بيسا بشهر رمضان وبشهر سقالات بلها إسلامك bisha la yiraahdo Ramadaan waa bisha sagaalaad ee bilaha islaamka ee loo yaqaano hijriga bilaha hijriyada ee bilaabmay waqtigii nabi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa aad ka soo hijrooday Makka una hijrooday Madiina bisha Ramadaan af Soomaali waxa lagu yiraahdaa soon marka bilaha Soomaaliga la eegayo waa bisha soon Eidul Fidri waa ciida ka dambaysa bisha Ramadaan waa bisha sagaalaad ee bilaha islaamka ee loo yaqaan magaca hijriga ama hijriyada bisha Ramadaan af Soomaali waxa lagu yiraahdaa soon maxaa loogu bixiyay ciidan Eidul Fidri tii hore waxaanu sheegnay Eidul Adha waxa loogu bixiyay adxiyada oo ah xoolaha la qalo ciida sida daraadeed baa loo yiri Eidul Adha hadaba Eidul Fidrina maxaa loogu bixiyay si aanu garno Eidul Fidri waxa loogu bixiyay marka hore waxaanu eegi doonaa fidrigu waa maxay fidrigu waa cuntada la siiyo dadka saboolka ah macnihiisu waxa weeyaan waa dadka aan waxba haysan dadka faqiiriintan waxba haysan cuntada la siiyo marka ay Ramadaan dhamaato fidrigu waa cuntada la siiyo dadka saboolka ah marka ay Ramadaan dhamaato dadka muslimiinta ah ee maalqabeenka wax haystaa waxa ay cunto siiyaan dadka saboolka walaalahooga la nool si ay farxadda maalinta ciida uga qayb qaataan oo ayna dawarsiiyo su'aal u bixin sababta ayaa loogu bixiyay Eidul Fidri sababta cuntada la siinaya ayaa la raaciyay waxana la yiri Eidul Fidri ciidii la bixinayay fidriguna cuntada waxa laga bixiyaa qofka soo xaafada kamida ayaa 2 kiilooyo badh cuntada ay dadkaasi cunaan laga bixiyaa waxyaabaha qofku kaga qayb qaadanayo waxa kamida ciidi markay timaado waxyaabaha qofku kaga qayb qaadanayo waxa kamida ciida maalinta ciida waxyaabaha qofku kaga qayb qaadanayo waxa kamida inuu qofku jirka soo maydho oo waayo waa maalin cibaado oo ay dadkii isku wala imanayaan si dadkii aan adigoo uskagle oo aanad u dhaxgelin oo bilic fiican saad u heshid waa inuu qofku jirka soo maydha inuu dhar cusub soo xidho qofkii helaya inuu dhar cusub soo xidho hadii uu dhar cusub awoodi karin inuu haysana dharka shandada ugu jira ama uu haysto inta ugu bilicda fiican ee ugu quruxda badan inuu soo xidho si uu dadka u dhaxgalo inuu udug soo marsado udugu waa cadar inuu cadar soo marsado oo dadkii baad dhaxgalaysaa dadka ha ka dareemaan ur udgoon iyo inuu cadar soo marsado hal mar ayaynu dul carari doonaa Eidul Fidri waa ciida ka dambaysa bisha Ramadaan hadhow hadii lagu yiraahdo Eidul Fidri waa maxay waa ciida ka dambaysa bisha Ramadaan ayaa la yiraahdaa Eidul Fidri Ramadaan waa bisha misaal marka la eegayo bilaha islaamka waa bisha sagaalaad bilaha islaamka ee loo yaqaan magaca hijriga bisha Ramadaan af Soomaali waxa lagu yiraahdaa soon bilaha Soomaaliga marka la eegayo Ramadaan waa soon Eidul Fidri ereyga fidrigu waa cuntada la siiyo dadka saboolka ah markay Ramadaan dhamaato
markay maalinta ay rabadaan dhammaato habeenka ciida ayaaba cuntada la siinaya dadka saboolka si ay maalinta uga dhigtaan qadadii iyo wixii ay cunayeen waana sababta ayaa loogu bixiyay fidri waxyaabaha qofku kaga qayb qaadanayo waxa kamid ah inuu qofku jirka soo maydho uu uska giiska soo maydho inuu qofku dhar cusub soo xidho ama dharkiisa inta ugu bilicda fiican ama quruxda badan inuu udug soo marsado oo cadar uu soo marsado ugu dambeyn casharka waxaynu ku soo gabagabayn doonaa oo aynu maanta qaadanay ciida loo yaqaan ciidul fidri oo insha Allah bisha Ramadaan imika inagu soo socoto marka aynu dhamayno aynu iidi doono casharkii ciidu halkaas uu inoogu dhamaaday xiisada xigdaad waa la yiraahdo waxaynu arki doonaa layliska casharka ardayda waxaan ku bogaadinayaa inay casharka soo akhriyaan oo ay buugo ka akhriyaan inta aan meesha ku qorayna ay soo akhriyaan hadii uu alla yiraahdo intaasaan ku joojin doonaa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh dugsiyada al irshaad schools